xaafadda Sawsi ee Nairobi ayaa guri ay Soomaali dhisaysay ganacsato Soomaali ah ayuu dumay dabaq dhowr iyo toban guri dhowr iyo toban dabaq ka kooban. Arrintii waxay banaanka keentay in weli nacaybka loo qabo Soomaalida ayay banaanka keentay. halka lagu dabcan dadka guriga dhisay laftirkooda xadgudub fara badan ay sameeyeen loomana baahnayn oo waxyaabo fara badan ay ka talaabsadeen. guriga laftirkiisa 2 sano ka hor ayaa la calaamaday oo la yiri maartay waxba ka khaldan. dadkii guriga dhisay halkay u hogaansami lahaayeen laaluushi waxba iska bixiyeen way sii wateen. arrintaas dhacday. arrintii warka waxay banaanka keentay Kenya Soomaalida sida loo arko. waxyaabaha baraha bulshada ku qoran iyo waxyaabaha soo baxay ee doodaha jira hadad aragtid waad yaabaysaa. waxa la leeyahay lacagtii Mareykanka Minnesota laga soo dhacay Kenya lagu maalgashanay. awal moogtahay waxay dhigi jireen Soomaalida lacagtii burcadbadeed ay meesha maalgashanaysa. hadda Minnesota waxa la dhahan noo soo baxay. marka baraha bulshada waxa haysta hadda Soomaalida arrinteeda 2 maalmood Soomaalida laga hadlayaa iyo lacagtooda iyo ganacsigooda iyo dhibka ay Kenya ku hayaan. طبعا هذا وضد او قلدمي او حد قدبي لو منا باهنا لكن ما اه مركي ugu horeyso Kenya guri dumay xaafadaha kale ku duma ganacsato kale ku duma Kenya dabcan waa wadan isfahan ganacsato kale qabaa'il kale ayagana qalad gala waxoodu ka duma markuu wax ka duma ganacsadii al-eeda ee dawladii iyo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee xadgudubka ka dambeeyay laakiin qabiil dhan lama eedo haatan maaratay arrintii waxa loo rogay Soomaali iyo dhibkeeda. horeyna waa uga hadlay oo Soomaalida Kenya gooniya lagu hayaa waa inay u fiirsataa waa inay is ilaalisaa baan hore u yiri. inkastoo arrintii ay haatan yaraanayso oo bulsho badan ay arrimihii ku baraarugayaan iyo been abuurkii iyo wixii haddana weli dhacdooyinka noocan markay dhacaan ayay dadka qaar uga faa'iideysanayaan oo maaragtay ay Soomaalida bartilmaameed ka dhiganayaan. marka waa qof walba oo Soomaali ah waa inuu isu magacaabaa inuu safiir yahay oo Soomaalida magacooda iyo sumcaddooda ilaaliya.